السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داودي الميل البود دونك كجوجتان iyo goor kasta joogtaan ku soo dhawaada telefishinka Kalsan TV barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono qoraal Soomaaliyeed oo aan ugu magac darnay qoraal Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Saciid Cali Shire oo buugaag badan inoo soo daabacay Saciid ku soo dhaw telefishinka Kalsan waa mahadsantahay cali ar ma sha Allah mahadsantahay daawadayaal Saciid waxa uu daabacay buugaag badan oo ugu horeeya furaha ganacsiga buug la yiraahdo hogaamiye buug la yiraahdo asagana oo ah buug aad iyo aad runtii qiimo badan u leh iyo sidoo kale buug la yiraahdo bangiyada islaamka saddexdan buug ayaan toddobaadkan dirab ka noqdo dirada ku saari doona kana wareysan doona Saciid hadaan kugu bilaabo ugu horeynta buuggan hogaamiye dhawaan baad soo saartay kal hore laakiin hadda waxaad ku samaysay daabacaad labaad oo dib baad u habaysay bal warbixin nooga sii wixii aad ku soo dartay iyo daabacadan labaad bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore cali ar waa ku salaamaya adiga iyo bahda Kalsan TV waa kaaga mahad celinaya in ay ugu martiqaaday barnaamijkan gaarka ah sidoo kale waa salaamaya daawadayaasha Kalsan TV waana u hambalyeynaya Kalsan TV waa TV aan rajeynayo inuu dhawaan ku soo biiray shaashada TV-da Soomaalida mahadnaqaas iyo salaanta ka bacdi haddaan u soo laabtay su'aashaada saa u sheegtay hogaamiye daabacadiisa koowaad waxay soo baxday 2009 laakiin qoraalkiisa dhabta waxaan bilaabay 2000 inaan qoro buuggaas oo aan geliyo waqtiga qaatay 9 sano waxay ahayd dareen hilow welwel aan ka qabo Soomaaliya aan ka xumahay dareenkeedu dhib iyo jihada u socoto aan ka welwelsanahay mustaqbalkeeda ayaan bilaabay inaan qoro xilligaas ururiyo macluumaadka waxay ugu qaadatay 9 sano inaan qoro markii hore dabcan 9 sano saan buugga u qoro waxay noqotay inaan akhriyo wax ka badan 700 buug inaan akhriyo wax ka badan ilaa 2000 oo daraasad cilmiyeed oo lagu sameeyay hogaaminta inaan dhageysto ama daawado intaasoo kun oo lecture ma jirto koorso la xiriirta leadership oo ka baxda UK oo Institute of Leadership member ka ah ilaa waa sameeyay awalna qayb ay ka waxbarashadeeda marka hore waxay ugu qaadatay 9 sano inaan soo saaro daabacadii koowaad dabcan buug wuxuu unique ku ahaa markii aan darsay hogaamintu waa mowduuc horta complex ah waa mowduuc dhib badan waa mowduuc gundheer waa mowduuc taariikh yani cimri weyn dhanka cimri weynaanta waxaad ka garanaysaa eebe subxaanahu wa tacaala intuusan abuurin nabiyullaahi aadam wuxuu malaa'igta u sheegay inuu abuurayo khaliifa wa id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa culimada qaarkood khaliifa waxay ku fasiraan hogaamiye kuwa dhaxli doona adduunka kuwa maamuli doona adduunka kuwa maareyn doona adduunka qofku suu u dhaxla adduunka u maareeyo adduunka u maamula adduunka waa inuu noqdo hogaamiye mid ka mid ah asbaabaha uu ilaahay u abuuray bini aadamka waa inay hogaamiyaan camiraan ku noolaadaan dhulkan marka waa mowduuc cimri dheer oo ka horeeyay aadamaha wuxuu ka mid yahay mawaadiicda daraasadaha ugu badan laga sameeyo caalamka ma jiro buug mowduuc ka buugaag badan hogaaminta asbaabta keentay yani lacagaha tababaradana hogaamintu waa mowduuca lacagaha ugu badan lagu bixiyo caalamka marka mowduuca ugu cimriga weyn adduunka buugaagta ugu badan laga daabaco adduunka lacagaha ugu badan ay ku bixiyaan shirkadka iyo dawladuhu waa dareemaysaa ahmiyadda uu leeyahay waana mowduuc aan isleeyahay waa buuggii u horeeyay wuxuu ahaa lagu qoro af Soomaali xilligan ku jiray daraasaddan waxaan ogaaday inayba tahay masiibada ku habsata Soomaaliya dhibta haysta Soomaaliya inay tahay hoggaan xun marka time dheer bay ugu qaadatay markaan darsay mowduuca hogaaminta misana waxaan darsay taariikhda Soomaaliya ummadda Soomaaliya si aan u ogaado khalalku goorma ku dhacay waxaad ogaanaysaa Soomaalidu maaha ummad shalay dhalatay cilmi baarayaasha taariikhda Soomaalida qaarkood Soomaalida waxay kala fadhigaan aadamaha waxay dhahaan wax daarada ugu facda weyn oo Jaamac Umar Ciise wuxuu yiri waxaan hayaa ilaa 8,000 oo sano taariikhda Soomaaliya Khalid Cali Gul warsama buuggiisa hirarka taariikhda ilaa 5,000 oo sano ayuu sheegay inuu hayo taariikhda Soomaaliya haddii si cilmiya loo darso farar laga helay godad ku yaala Hargeysa iyo Boosaaso iyo Cergaab iyo agaarkooda oo lagu qiyaasay cimrigooda inay 10,000 oo sano waxaynu noqonaynaa xadaaradaha ugu ilbaxnimooyinka ugu faca weyn adduunka waxaa la ogyahay Soomaalidu inay leedahay taariikh dheer oo fog oo yani gudo ballaaran qurux badan macaan ummad marka taariikhdaas leh dhulka intaa la eg deganayd saameyn intaa la eg ku yeelatay adduunka qarnigan lagu jiro inay noqoto ummadaha mid ugu hooseysa ugu liidata la noco lala associate gareeyo lala xiriiriyo dawlad fashilantay ummad baaba'day dawlad dabar go'aysa ummadaan mustaqbal lahayn wax kastoo xun aniga dareen gaar ay u keentay markii aan taariikhda Soomaaliya akhriyay ayaan waxaan isku day inaan darso maxaa keenay in hoggaanku ina ka xumaado haddaynu hoggaan xun from bilowgiiba aynu lahaan lahayn
umamkii la tirtiray baynu ka mid noqon lahay ilaa adduunka waxaa ogtahay qur-aanku wuxuu inoo sheegay umam badanoo la tirtiray caad iyo thamuud iyo fircoon qoomkiisa iyo qoom badanba qoom saalix iyo qoom luudi intaasoo kun oo qoom oo la tirtiray baa qur-aanku inoo sheegay qaar laynoo ka sheekeeye baa jira qaarna laynoo ka sheekeyn baa jira soomaalidu ilaa ay soo gaartay maanta waxay muujinaysaa inay ahaan jirtay marka hore ummad magac leh sharaf leh taariikh leh ummaddii marka taariikhdaas lahayd maanta inay gaarto meeshaas marka buugga qaybtii hore waxaan isu keenay nadariyaadka ama theoriyooyinka hogaaminta iyo taariikhda soomaalida markaas waxaan kasoo dhex saaray model aan isleeyahay waxbaa lagu sixi karaa daabacadda labaad 2009 markaan daabacay number badan baan daabacay Soomaaliya gaaray jaamacado badan oo Soomaaliya laga isticmaala dad badan oo aqoon-yahan buu gaaray marka waxaan helay macluumaad fara badan ayaan helay marka daabacadda labaad waxaan kusoo kordhiyay ilaa 80 page baan kusoo kordhiyay qaybo badan baan dib u qoray oo markii hore aanan xaqay lahayn aan siin waxaa kamid ah islaamkii hogaaminta oo markii hore xaqay lahayd aan siin xilligii hore waa ka baqayay waxyaabaha qaarkood inaan magacaabo oo Soomaalida qof hadii la soo qaado waa sensitive hebel maxaa loo magacaabay leedahay hadda waa ku dhiirad inaan rag qaarkood magacaabo iyadoo objective ku yahay cibra iyo taariikh aysan ahayn dagaal iyo colaad marka hadda waxaan kusoo kordhiyay ana taxliil inta hore ka badan chaptero inta hore ka badan hogaamintu maaha cilmi taagan oo cilmi tadawuraya maalin kasta wax cusub kusoo kordhayaan iyo inaan kusoo kordhiyo nadaraadkii ugu dambeeyay iyo theoriyooyinka ugu dambeeyay cilmiga marka qaybtan cusubi qaybtii hore waxaa wehelisa taxliil fara badan nadariyaad fara badan iyo qaybaha qaarkood marka hore xaqay lahaayeen aan siin inaan xaqay lahaayeen siiyay oo aan sii balbalaariyay waan gartay dabcan buugga waa kala gogosan doonaa oo waa u soo noqon doonaa laakiin intii aad ku jirtay soo saaridda hogaamiye dabcan taariikhda Soomaaliya si saayida u darastay waxaad ka sheekaysay in dad badan oo ay jiraan taariikhda Soomaaliya ilaa 8,000 haya ilaa iyo ka badan bal ka waran hogaamiyaashii Soomaaliyeed ee xilligii hore xataa gumaysiga ka hor Soomaalidu markay soo bilaabatay ka sii hor jiray bal ka waran يعني قف كسته أو درس تاريخ الصومالي قف كسته أو مرة دولك الصومالي قف كسته أو تجا مكتبها عالمك وحوجانية الصومالي إنه كم تهاي وماذا صارت هجومية العالم ككل جوا وينه أي نقطة يعني مكتبات كسته وحيابها أنا قاعد وحكمده أفر سبب باموك كهالله أو تاريخ الصومالي أو كرساري يعني أوبجكتيف كي جوا هجومية شيء أود ساري هجومية الصومالي إسلام كورتيس يعني إلا أي تاريخ هورتيد xilligii waxaynu haynaa taariikh badan oo muujinaysa waa la isku hayaa faraacinadu ma Soomaaliya ka yimaadeen mise Soomaalida faraacina ahayd mise Soomaalida iyo faraacinada isku dadaha mise Soomaalida tababartay cilmiga bari jirtay faraacinada waa la isku haystaa laakiin laga soo bilaabo taariikhaha la hayo xilliga faraacinada hadda afar badan oo laga helay Masar ay muujinayso laga soo bilaabo xilligaas yani waxaan akhrinayay maalin dhaweyto nin dhan oo Turjumaali oo turjumay looxaad kan ahraamta laga helay mid kamid ah oo muujinaya nin ka soo jeeda Soomaaliya inuu zaman dhexe 2200 sano ka hor taariikhdii dhalashadii Nabi Ciise inuu kamid ahaa elite-ka faraacinada marka islaamka hortiis hogaamiyaasha Soomaaliya yani prehistoric ilaa iyo ka hor xilliga faraacinada ilaa laga soo gaarayo xilliga soo baxay islaamku buwaag badan baa la hayaa athar badan baa la hayaa rag badan baa maray dhulka Soomaaliya raadad badan baa ilaa hadda yaala raadadka ugu la yaabka badan waxaa kamid ah taalooyinka ka badan ka dhisan buuraha korkooda oo qaarkood sida awjaab ninka la dhahayo Khalid Cali Guul oo kale ilaahay uu naxariisto oo soo bandhigay in lagu kala dooran jiray hogaamiyaasha oo tusaalaan soo bandhigay marka raadad waxaa la hayaa buug cilmiya la hayaa buug la dhaho The Bible oo taariikhda miilaadiga goorteed 40 nin guriga oo maray dhulka Soomaaliya oo maray wuxuu ku arkay iyo dadku la kulmay waxyaabo badan waxaa la hayaa marka islaamka hortiis inay ahayn ummad taariikhi leh caalamka tagta trade-ka adduunka saameyn badan ku leh wadamo badan saameyn badan ku lahayd islaamku markuu yimi sida rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam akhyaarukum fil jahiliya akhyaarukum fil islam ida wafiq yani qofka islaamka hortiis akhyaar aha islaamka gadaashiisna hadduu diinta ilaahay fahansiiyo wuxuu noqdaa akhyaar Soomaalida waxay kamid tahay sidaan ognahay meel u horeyso diinta islaamka aqbalay bay kamid tahay qaatay bay kamid tahay seefaysan ku qaadan aqoon waa aragnimo cilmi xikmad ay lahaayeen waxa la hayaa taariikh muujinaysa rag badan oo isma aha boqorro iyo salaadin ah oo Soomaaliya joogay inay markiiba islaamka qaateen kadibna dadkoodii oo dhan ay islaameen okay ma la dhihi karaa marka Soomaalidu diinta xataa sida ay ku soo gaartay waxa u horseeday hogaamiyaasha ay lahaayeen oo fiican sida buuggaaga aad ku sheegaysa waxa jirta qaybo kamid ah deegaankii Soomaalida in ay qaateen suldaanadoodii iyo ismadoodii kadibna ay u keeneen shacabkoodii ay ka dhadhacsiyeen ma la dhihi karaa hogaamiyaal wanaagsan oo xataa u horseedi karay in ummadda Soomaaliyeed hal mar waa asiibtay yani waxyaabaha markii aan cilmigan muddo badan darsay taariikhda Soomaalida aan darsay waxyaabaha miidahan ka dhaxlay waxaa kamid ah ummad taariikhda meel ka gaarta hadaad aragtid bacdallaahi waa hogaan fiican ummad hagaasta burburta
tirtiranta magaceeda la waayo haddaa aragtidna qadarta ilaahay ka gadaal waa hoggaan xun hogaamiyuhu hadduu hagaago ummadoo dhan baa hagaagtaa hogaamiyuhu hadduu xumaado ummadoo dhan baa xumaataa qur-aanka eebba wuxuu inoo ku sheegay nabiyullaahi yani qisadii balqiisa waynu wada naqaanaa hudhud markii uu leeyahay waxaan soo arkay qoom ay gabar u tahay boqorad oo dabka caabudaya gabadha markii uu nabiyullaahi sulaymaan markuu usoo diray warqadda dhambaalka waxay tiri dadkii bay la tashatay dadkii bay la tashatay waayo nabiyullah haddii ay canaad iyo madax adeeg iyo indha adeeg iyo isla weyni ay dhihi lahayd maalmaha boqorada cidi warqadii soo qori kartaa way iyadaaba sheegtay muluukyadu ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha yani boqoradu hadday magaalo galaan waa lagu baabaa meeshaas yani waxaynu helaynaa taarikhda ummad badbaadiya haddaa aragtid bacdallaahi waxaa badbaadiyey boqor xikmad leh caqli leh dadkiisa la tashada dadka waxaan ku yidhaahdaa ii sheega waddan horumaray maanta waxaan idiin sheegayaa maalintii uu jaranjarada horumarka cagta saaray hal wax baa dhacay maalinta hogaamiye fiican buug baan hadda qoraa ciwaankiisu yahay caalamka iyo 2050 adduunka geedibu ku jira hayaan ayuu ku jiraa umamkii waa kala tageen umamkii hogaamiye fiican leh dadkoodii waxay u wadaan meel mustaqbal fiican leh bal innagaa hadda aragnay wadamada dariskeena wadamo 70aadka 80aadka Soomaaliya ka horumarsanayd ayaa maanta waxay ka mid yihiin caalamka horumaray Malaysia oo kala kamid ah Singapore oo kala kamid ah asbaabtuna bacdallahi waa hogaamiye fiican ummaddu waxay u baahan tahay wax jiheeya marka Soomaaliya zabanadii hore waxyaabaha ilaahay ku badbaadiyay waxaa ka mid ah hoggaan fiican hoggaan dadka la tashada hoggaan aqoon leh hoggaan way araga hoggaan qiyam leh values run yaqaan amaano leh cadli leh dadka soo dhaweeya wax garasho leh cilmiga xushmeeya dadka ku hareeraysan ay yihiin dadka nukhbada ugu aqoonta badan ugu khayrka badan ugu fiican ugu wanaagsan hogaamiyaashaas intaynu lahayn ogow taariikhda waxaad arkaysaa zaman kasta quwadihii ugu waaweynaa adduunka waxay ahayd Soomaaliya meesha hunguriyeen lama hayo taariikh adduunka xadaarad soo martay oo aan isku dayin inay qabsato dhulka Soomaaliya Roomaanka ha noqdeen Greek ha noqdeen Spain ha noqoto Portugal ha noqoto yani cid adduunka Persia ha noqoto cid adduunka aan hunguriyeen Soomaaliya inay qabsato ma jirin waayo Soomaalidu waxay hodan ku ahayd geedkan lubaanta la dhaho oo waaga hor loo shidan jiray meelaha macbadyada ah waxaan arkay buugaag Persian oo boqolaal yani nin boqor ah oo mar ku duwan inuu qabsado dhulkaas waxay qabsadeen Yemen waxay qabsadeen Oman si sahal ay ku qabsadeen way qabsan kari waayeen Soomaaliya taasna waxa u horseedaysa hogaamiyaashoodii waxay keenaysaa hoggaan fiican dadku ku kalsoon yahay dadka la tashada ummadda u naxaya ummadda u hilaadinaya geed harweyn dadku ay kalsooni ku qabaan dabcan ummaddii hogaamiyaasha intaas saa u wanaagsan adduunka taariikhdaas ku leh sida aad sheegtay ama taariikhda ku cadba marar badan lagu soo duulay ee ka difaacay ummadda u horseeday in ummadda dhan ay wada muslim noqdaan maalmo gudahood hogaamiyaasheeni sida ah maxaa diidan maanta ummaddeena Soomaaliyeed maxaa ka dhigay gablanka hogaam ilaa waxa horena dalkeena maanta burbursan waxaan arkaa qayb dambe oo buugaaga aad dib kaga dirto 7kii madooba aad tiri maxaa horseeday baan is dhihi karaa in ummadda inta tira la eg maanta Soomaaliyeed ay gablan ka noqoto hogaamiyaasha chapterka baadagoob 4 qaybood baan u qaybiyay hadda waxaan xuseeyo kaliya hogaamiyaasha Soomaaliya islaamka hortiis zamanka islaamka hogaamiyaal la yaab la ka soo baxay waxyaabaha la yaabay waxaa kamid ah India gobolkan Gujarat la dhaho mar ayaa taliyaha ciidanku wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo Saciid al-Xabashi la dhihi jiray oo caa'ilada oo ku abtirsan xataa hadda aan soo helay gobolkaas Gujarat oo India qof kasta oo taga calaamadda gobolkaasi waa maktabadda waxaa dhisay ninkaas Saciid al-Xabashi qof kasta oo maktabadda taga wuxuu ugu tagay abtirsiyihiisii soo wado oo ah hebel reer hebel ah oo reer hebel ah oo aan isku day intaan ismadoodii raadiyo in la taxqiijiyo zamankii islaamka marka waxaynu ka soo baxnay hogaamiyayaal furay Asia oo dhan furay umawiyiinta ha noqoto yani xilli kasta oo islaamka xadaaradiisu ay fidaysay waxaa laga dhexeliyaa dad hogaamiyayaal Soomaaliya bal waxaa soo dhawaaday oo 20aadkii hadda inuu taariikhda akhrina xaaji aadan afqalo ilaahay u naxariistay iyo meelihii uu tagay iyo intuu xukumay iyo meelihii uu matalay khaliifada Soomaaliya u sameeyay marka zamankii islaamkana Soomaalida hogaamiyayaal baa ka soo baxay waana waxyaabaha ay ku liibaantay badmareenadii maray badda Soomaaliya iyo raggii maray oo dhamina waxay ka sheekeynayaan ummad ilbaxsan dad xadaarad leh masaajid leh cadli leh nidaam leh qof kasta akhriya buuga ibn Battuta iyo markuu tagay Muqdisho uu yaabay zamankii marka gumaysiga ayaa la soo gaaray zamanka gumaysiga adduunka oo dhammeenu la qabnay wuxuu ahaa zaman khaliifada islaamka ay hoos u dhacday ogow weerarka lagu hayo Soomaaliya time hore soo bilaabay laakiin weerarka Soomaaliya waxa la guuleystay maalintii Harar laga qabsaday Soomaaliya ayaa Soomaaliya laga guuleystay Harar ma qabsan Ethiopia
waxaa isu kaashaday kirishtaan oo dhan baa isu kaashaday nasaaro dhan baa isu kaashatay soomaaliya baddaa laga duqeeyey waa la wiiqay waxaa loo soo diray khubaradii markaa Vasco da Gama walaalkiis baa hogaaminayay ciidankii Spain ee dirtay hubkii ugu casrisanaa ayaa la siiyey marka meeshii warshadii soo saari jirtay hogaamiyeyaasha waxay ahaayeen xarumaha cilmiga harar markii xabashadu qabsadeen 300 oo iskool ayay gubeen xaajada nafqalo waad arkaysaa gabaygiisa 300 ka badan culamadii suuqa harartii leh 300 oo sheekh ayaa la gowracay hal maalin nin kastaana wuxuu hayay madrasa jaamacad u dhiganta maanta mid xadiidka lagu barto mid luqadda lagu barto mid fiqiga lagu barto waxaad buugga ku arki doontaa hogaamiye habeen laguma noqdo hogaamintu wax sahlan maaha hogaamintu waa barasho marka dhibtu waxayna ku bilaamatay markii qalbi yani warshadii soo saari jirtay hogaamiyeyaasha meeshii aqoonta cilmiga Soomaalidu waxay dad cilmi leh Yemen maanta nin kasta oo taga culimadii ugu waaweyned oo soo martay Yemen qaarkood waxaa la dhahayaa ama waa harariyiin ama waa zayriciyiin ama waxay ku soo barteen madrasooyinka Saylac culimadii Saylac wax ka soo barteen ama culimadii Harar wax ka soo barteen xarumihii soo saari jiray cilmiga iyo aqoontu markay baaba'een intii ka dambeysay maalintii ka dambeysay weerarku waa socday markii u dambeysay oo ay baaba'day khaliifadii u dambeysay islaamka Afrika la qaybsaday ayaa Soomaaliya la qaybsaday meeshii u dambeysay oo gumaysigu uu gaaro Soomaaliya waxay ahayd saldanadii Majeerteeniya boqor Cismaan ay ahayd meeshii u dambeysay oo la qabsaday la socdo waxyaabaha la yaab kale oo aad ka dareemaysid oo time dheer ugu qaadato oo qof kastoo tagaa British Library wax xataa helayo oo buugga referensiga siinayo markii laba jeer bay xabashadu qabsatay Harar markii dambe markii xabashadu ay qabsatay Harar oo firarkii uu gaaray saldanadii Majeerteeniya iyo Hobyo ayaa waxaa isu tagay saldanadii Majeerteeniya iyo Hobyo markaasay waxay dhaheen waxaynu diraynaa ciidan gaar ah 50,000 oo askari oo dib u xoreeyay Harar yani inaynu nahay ummad isu danqata isu jiir dhaxda isjecel midba mid kale ka fikiro way soo dhawaatay hogaamiyaasha fiican waa soo dhawaadeen laakiin gumaysigu markuu gacanteena ku dhigay wixii u horeeyay ka bilaabay waxay ahayd dadka hogaamiyaasha in la laayo culimada in la laayo wax garadka in la laayo ayay ahayd kadibna waxay noqotay dad been ah oo maqaar saar ah in hogaamiyaal loo ka dhigo maqaar saarkiina maalinba mid ka sii xumaa midba mid ku xumay u dhaliyay waa kuwa inuu soo gaarsiiyay maanta zamankan u bixinay zamankii madooba waan gartay dabcan buugga waa ka bixi doona haddii rabbi karaan noqdo mar dhow buugaa kale inoo taalo mar inaan waqti badan saas oo inaga sii cuno laakiin waxaan jeclay inaan dhowr saacadoo isku xiran hal mar ku weydiiso hal mar sharaxaad nooga wada siisay maanta dabcan taariikhda Soomaaliya hadda 20 sano u dambeysay waxaan ku jirnaa sabana aad u madow sida aad baa sheegtay oo dhanka hogaamiyaasha ah oo waxaan ka warqabnaa inaan wax haba yaraatay hogaamiyaal aragti iyo midnimo iyo hiraal u horseeda ummadda Soomaaliyeed ka saara meesha ay joogto ana wali helin ama baad goobin sidee lagu heli karaa ayaa isleedahay hogaamiyaal Soomaaliyeed oo ummadda u abuuri kara hiraal hiraalka la tirkiisana sharaxa inta la eg ayaa naga siin kartaa hiraalku waa vision hiraalku waa meel loo socdo waa mustaqbalka waa jiheeye buugga waxaa laga yaabaa in aragtid waxa ku sawiran kambasku waa jiheeye meel kastaa joogtay kambasku wuxuu tilmaamayaa north haddaad north garatid jihooyinka kale waa garanaysaa hiraalku waa meesha ummadda u socoto waa guriga la degi doono 20 sano yani duwalku hadda waxay sii marayaan oo buugga 2050 ku arki doontaa wadamo badan ayaa waxay sii diyaarinayaan 2100 meesha ummadooda u rari doonaan waayo ummad in la bedelo dhaqaale ahaan bulsho ahaan waxbarasho ahaan culture ahaan time bay u baahan tahay inaga marka meelahaynu ka dhimanay oo gumaysigu ku guuleystay waxa weeyaan wuxuu madaxweynuhu ka dhigay hogaamiyaal aan hiraal lahayn hiraal ummadeed aan sameyn karin meel fog aan u jeedin ku mashquulsan lugahooda ku mashquulsan walaalkood ku mashquulsan gurigoodii ninka Soomaaliga ah markuu cunayo ninka kale oo Soomaaliga isagu wuxuu haystaa inuu cunayo cadow laakiin waxa uu gumeynaya waxa uu gablaminaya waxa uu mustaqbalkiisa tirtiraya waa walaalkiis waa adeerkiis waa hooyadiis waa habaryartiis waa ummadiis yani waxaan la yaabaa oo aniga ilaa hadda qalbigayga ka go'ila Ethiopia waxaa ku nool 80 qowmiyadood 70 qowmiyadood waxaa looga hadlaa 80 luqadood waxay ku guuleysteen inay hal himo yeeshaan hal vision hal hiraal ay dhahaan waxaynu u guurinaa meeshaas wadamo badan oo 70 ay ku nool yihiin ethnic groups qowmiyadood ayaa hal hiraal samaystay because of hogaamiye inaga hal qowmiyad hal diin hal yani caqiido hal madhab hal luqad hal dhaqan wada wiil iyo abti iyo walaal iyo sadaq iyo sayyido isu ah baynu samaysan weynay hiraalka hogaamiyaha sameeya hogaamiye kastana hiraal ma sameeyo hogaamiye aqoon leh hogaamiye isku kalsoon hogaamiye qiyam leh qiyamka ayaa wuxuu yahay waxyaabaha inuu ka dhimanay qiyamku waa amaanada waa runta waa cadaaladda waa kalsoon yani qofka aad ku kalsoon tahay waa in ninka hogaamiye tusan noqdo in lagu kalsoonaado hogaamiyuhu ummadda hirbu u saaminaya ummaddu raba inuu bedelo
dagaal buu gelinaya mararka qaarkood xaalad dhaqaalo culus baa imaanaysa dadku rabaa inuu jiheeyo Singapore ayaan la yaabaa ninkii u horeeyo prime minister ka noqday markii ay ka soo go'een Malaysia khudbad buu jeediyay wuxuu yiri hal option baynu haysanaa waa inaynu dadkeenu wax bartaan waxaan akhriyay dhowr qof oo taariikh ka qoray Singapore qof kasta oo reer Singapore waa rumaystay ninka hadalkiisii habartii 60 jirka ahayd buug bay qaadatay ninka hogaamiyaha ummad dhan buu rabaa inuu bedelo waa inuu qalbiga ka hadlo ma inuu caadifad bishimaha ka hadlo marka hogaamiyaha markuu qiyam leeyahay oo amaano uu leeyahay oo run lagu yaqaan oo lagu kalsoonaan karo oo diintiisa la yaqaan amaanadiisa la yaqaan cadligiisa la yaqaan wax kasta uu sheego dadku way rumaysanayaan marka ummadda hadduu hiraal u sameeyo oo dhan waxaan rabaa 30 sano ka bacdi Soomaaliya inay yeelato muuqaalkan vision hiraal si aynu muuqaalkan u yeelanan qorshihii waa kan qorshuhu wuxuu u baahan yahay kalsooni iyo amaano iyo run sheeg iyo balbu u baahan yahay waa hawl culus ayuu u baahan yahay marka inaga dhibtu waxay tahay hogaamiyaheenu marka hore mala qiyamkii waxaan u bixiyay qiyamka udub dhaxaadka hogaaminta aqal Soomaaligu wuxuu leeyahay tiir dhaxaad baa la dhaho tiir dhaxaadka hadii laga saaro wuu duma nin aan qiyam lahayn hogaamiye ma noqdo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay calaamado inuu leeyahay qofka munaafiqa ah munaafiq hogaamiye ma noqdo qof beenta yaqaan aan amaano aqoon aan cadaalad aqoon يعني قفك على مدها منافق له هجامية من نقطة مركز قيم ومهم هجاميه قيم له أي هلال أمم السماء كره سي قفك هلال السماء هذا واحد كشرنا زمن القرآن زمن كتر تميه زمن واحد يذكر ربيع إنسان هاي حب أي تاي عقلي وحلا لها نولج إيرا زمن كي أقونته هجامية مركز أنا قول لها إنه هلال أمم السماء كرامات ويا عالم كي واحد لوجد بيا عالم أقونت بمانت لوجد عالم كي يعني واحد لصومري حلي بدكوا أي بيرها كنا لاين كعنك ورشدها لصومري كعنك أي تيجا على صومري هذا واحد لوجد شراء كعنك أقونته أي لوجد شراء يعني مركز هجامية أنا أقول لهين أنا فهمي كرنش هذا عالم كوسعده هلال أمم السماء طبعا سكستوا قانون ليه هلال أمم السماء وحيدا مهمة هجامية إنه ضدك على خطاب كره communication لا سمين كره وحفاهسين كره ضدك قلوب تودا كسبن كره وحبسين كره إنك مركز نبتة إنها ستة وحواي هجامياش يعني وقيبت هذا chapter كقدم يبوج وأنا بحي وضبحاتك يتيرك هجامينته وضبحاتك مركز وقيمك وفونديشنك وأساسك هجامينته قف كستأور إنه نقول هجامي يعني مرك قار كودنا ومهم أنت أنا شيء فهمك إسلامك هجامينته وكدوية فهمك قالنا إسلامك هجامينته وحديثك رسولك صلى الله عليه وسلم بعينه سواها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف كستو إلى جانا كمدي ومسؤول قف كستنا مسؤولية ديسا ولا قال حساب تمايا هو يدو هدي برته هجامين قولي جدا وجهين كرتا مستقبل في عم بقول يلي كرتا يعني هجامينته وحرفض لو أبلاي جرين كرا لو دبخي كرا قولي lagu dabaqi karo ganacsiga lagu dabaqi karo hay'adda lagu dabaqi karo shirkadda waa ka gudbaynaa waqtiga aad cariirusi ah waxaan rabaa dabcan buugga waa ku talax tagnay laakiin mar kale ku sii noqonaya waxaad mar dhawidna iga sheekaysay dabcan buugga soo socdana ku jirta caalamka iyo 2050ka xageebaan anagu ka gali doonaa ayay kula tahay ummadda Soomaaliyeed markii aad aragtid hogaamiyaasha hore aan lahayn kuwa hadda aan leenahay iyo mustaqbalka waxa aan yeelan karno adigoo dabcan aqoon-yahan Soomaaliyeed research sameeyay aad tahay taariikhda u fiirin karto iyo wadamada dariska ee nala ah sida Ethiopia iyo Kenya waxay sameysteen qorshe horumarineed oo ay rabaan inay gaaraan 2020 iyo 2025 annagana waxa ka warqabnaa 2015 xataa qorshe inuu degsan ma jiro bal ka waran ummadeenu xagee bay gaari doontaa baad isleedahay markii aad dhanka fiirisid على أرو إلهي ku sharfo caalamkii waa guuri geedii waxa la galay hayaan dheer baa la galay ummad kasta waxay samaystay qorshihii mustaqbalka qaarkood wadamada waa 2020ka 2030ka 2050ka 2060ka 2100ka ummad walba waa guuraysa Ethiopia waxay rabtaa wadanka ugu horumarsan Afrika inay noqoto ay rabtaa qorshihii ay ku noqon lahayd wadanka ugu horumarsan Afrikana way samaysay Kenya 2030ka waxay rabtaa inay noqoto wadan dalahaan horumarsan wadan aqoon leh si ay tusaalahaan aqoontaas ay uga run sheegaan waxaan u maleynayaa last 3 years ilaa 300 oo waxaa la furay polytechnics meel lagu barto farsamada gacanta waxay rabaan wadan warshado inay noqdaan say wadan warshado u noqdaan wayna horta aqoon-yahankii helaan Ethiopia hadda sanadkii waxay soo saartaa 50 kun oo engineer bay soo saartaa yani maaha waxaan dream kaliya riyo maaha waa in ficil loo bedelo umamkii waa guureen bacdallaahina rag baa hormuud u ah rag baa hoggaanka u haya rag baa jiheeyey innaga waxaa meesha ana dhigay muuqaalka inoo yeelay dadkeena u baaba'san yihiin aynu u gaarnay heer aynu uga faano maanta Soomaalinimadii waa hoggaan la'aan Soomaaliya sida uu qoro afrax buugiisa daldad waayey ummadaha saddex waxa hormuud ayaa badbaadiyay saddex bacdallaah saddex kooxood
waxa weeye intellectual elite waa hormuudka aqoonta, waa hormuudka siyaasadda, waa hormuudka dhaqaalaha. saddexda Soomaaliya la haray waa saddexdaas. mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa qofka Soomaaliga goormee qaan gaara, kii PhD-da haystay, kii professorka ahaa, maalintii ay istiraahday hadduu bislaaday oo xikmadiisa la guranaya ayuu qabiilkii iyo tuuladii dib ugu laabanaya. maalqabeenkii maalintii ay istiraahday hadduu bislaaday oo aqoontii iyo arrimihiisa la guranaya ayuu dib u laabanaya. siyaasigii maalintaas hadduu bislaaday. marka caalamka meeshaynu ka geli doonno waxay ku xiran tahay adiga iyo generationkiinu, hankiina iyo dadaalkiina. haddii idinku aad dareentaan in wax idinka maqan yihiin, anigu already too late konton jir baan ahay, too late wey. idinkaa 30 jiradiina iyo 20 jir haddaad dareentaan wax idinka maqan yihiin, haddaad rabtaan nolol midaan ka qurux badan inaad ku noolaataan, haddaad rabtaan dhaxalkan ka fiican ilmihiina ugu tagtaan, idinkaa la rabaa maanta inaad talabada u horeysa qaadaan. talabada u horeysaana oo qof kastoo Soomaaliya ku challenge garayo waa inay darsaan cilmiga hogaaminta. caalamka adduunka haddaad fiirisid yaa darsa cilmiga hogaaminta, kiniisadaha darsa. marka waa in la darso cilmiga hogaaminta. waqtiga aad gabagabanaga si ah waxaan jeclahay inaad 2 minutes ku dulmartay labadan buug oo kale ee bangiyada islaamka. dabcan marar badan baan barnaamijka ugu soo marti qaadi doonaa haddii rabbi ka raali noqdo bangiyada islaamka iyo furaha ganacsiga inaad 2 minutes ku dulmartay. labada buug iyaguna waa isku xiran yihiin. waxaa horeeyay buugga furaha ganacsiga horeeyay. buugga furaha ganacsiga waxaa saldhig u ahaa cilmi baaris 2 sano qaadatay oo ku sameeyay ganacsiga Soomaalida. waa buug ujeedadiisu yahay waxaan aad uga naxaa marka arko dadkan Soomaalida qurbaha jooga oo shaqo la'aanta iyo faqriga ka cabanaya, dadka Soomaaliya jooga oo ganacsigoodu meel gaari laaya. marka buugga objectiviisa wuxuu ahaa qofku sidee ku helaa fikrad ganacsi, sidee fikrad u horumariya. objectiveka qofka buugga akhriya wuxuu awood u yeelanaya inuu arki karo fikrad ganacsi, fikradda horumarin karo, ganacsiga hadduu leeyahay already ganacsiga uu kobcin karo, uuna ka badbaadi karo fashilka iyo waxyaabaha keena ganacsigu inuu daciifo. bangiyada islaamkuna qofkii hadduu u baahdo maalgelin xalaal ah sidee buu ku helayaa. 2 qof ha noqoto oo waxa ugu yar ah mushaaraka, iyo ha noqoto sukuuk waa waxa ugu weyn ah marka wadan la horumariyo airport iyo garoomo iyo loo dhisayo ayuu ka sheekeynaya. waa maalgashi xalaal ah si lagu helo isaguna. intee laga heli karaa buugtaada marka labada buugba insha Allah mar dhowna waxaan ku soo bandhigi doonaa masaajidada iyo xarumaha Soomaalida London iyo UK iyo Europe oo dhan. inta ka horeysa laakiin waxaa laga heli karaa website-kayga oo ah buux.net ama qofku inuu email ii soo diro ama qofku telefoon ii soo diro. ما شاء الله هذا ما سنتي داودي أنت سيان كسوق بجبين دونا طبعا وحفلة إن بوكتا إن سعيد على الشريعة سبيع عن وقدرتين إن وحي كلا أو كسر عصبر هذا بوكتا نقدر بكرة نقدر برهم شيء إن الضم أيان نقدر بكرة نقدر يكسر قادنا برامج عديد هنا أنا على عبد محمد نكفر سبضنا وعداوي أنت المركز لكم دونا واحد لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.